يدري عمك ما ينفع الاثنين. مين زنبع سنة رفع تانكلس. واو شن قف أرتي مركي أنا لاقي صار أفر قف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مركلا أصحابي kanaalkeena ogaal cusub. haddaad ka mid tahay cushaaqda ama dadka ciyaaraha video gameska iyo sidoo kale haddaanad ka mid ahayn waxa qasaba inaad maqashay oo marun ka soo maray magaca PUBG walow aanan anigu shakhsi ahaan ka mid ahayn dadka ciyaaraha video gameska haddana maanta bal waxaan isku day doonaa inaan wax ka ogaano qisada tafaasiisha ciyaarta PUBG ninkii aasaasay iyo sidoo kale sida ay ku caan baxday ciyaartani oo ay ugu qabsatay adduunka qaabkan dhaqsa badan leh kadibna ay uga hormartay oo ay uga guuleysatay ciyaaro ka horeeyay sanado badan waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalkan qisada guusheeda oo dhameystiran laakiin ka hor intaynaan bilaabin mawduuca hayloobin inaad like saarto muuqaalka mahadsanid ninka aasaasay ciyaartan waxa lagu magacaabaa Brendan Greene waana nin asal ahaan Irelandia wuxuuna ku dhashay ninkan magaalada Ballishinon ee ku taala dalka Ireland sanadkii 1976 macnaha imika wuxuu jiraa meelaha 40 sano wuxuu ku soo dhex barbaaray ninkan meel xara ciidan oo iska lahaa dalka Ireland oo lagu magacaabi jiray xarada Corag waana xara iska leeyihiin ciidanka xoogga ee dalka Ireland kadib muddo dheer oo wax baranayay ninkani ugu dambeyntii wuxuu ka qalin jabiyay ama uu dhameeyay kulliyadda artiska ama farshaxanka ninkan haddii ay eegno shaqooyinkiisii uu ka shaqeeyay bilowgii marnaba ma ila lahayn wax xidhiidha ciyaaraha iyo video gameska bilowgiina wuxuu ka shaqeeyay shaqada DJ-ga inta kadibna wuxuu ka shaqeeyay shaqada photographer-ka ama sawirqaadaha waqtiga uu ninkan soo dhex galay ama uu bilaabay inuu sameeyo uu ka shaqeeyo horumarinta gameska wuxuu ahaa sanadkii 2013 wuxuuna joogay waqtigaas dalka Brazil gaar ahaan magaalada São Paulo markii uu ninkani jiray da'da 30 jirka dabcan isagoo waqtigaas jooga dalka Brazil waxay isku barteen halkaas gabadh Braziliana dabcan waxayna wada sameeyeen xiriir ugu dambeyntiina wuxuu ku dhamaaday xiriirkoodii guur waxayna muddo ku wada noolaayeen dalka Brazil laakiin waxa dhacay sidii qornayd manuu sii waarin guurkoodii sida darteedna wuxuu ku soo dhamaaday xiriirkoodii furiin dabcan ma jirto cid sababta ka dambeysay furiinkan sababtoo ah Greene muu ahayn dadka kula wadaaga arrimaha ama mushkilada ka dhex jira qoyskiisa midiyaha iyo warbaahinta dabcan arrinka isna xusida mudan wuxuu yahay Greene wuxuu ahaa waqtigaas mid shiido oo aanay jeebkiisa ku jirin wax lacag gabi ahaanba waxa jirtay gabadh u dhalay ninkan waqtigaas xiriirka ka dhaxeeya gabadhiisana wuxuu ahaa mid aad u adag ilaa uu gaadhay ninkan inuu mararka qaar ku soo daro postiyada uu soo dhigayo dhanka Twitter-ka xiriirka adag ee ka dhaxeeya gabadhiisan inta kadibna wuxuu go'aansaday inaanu dib u guursan gabadh kale waxa kaliya uu ku fogan yahay inuu noqdo shaqadiisa wuxuuna go'aansaday inuu diiradda saaro shaqadiisa ilaa ay ka noqonayso xisaabtiisa bangigu mid ka kooban 10 nambar dabcan siduu filayay way dhacday oo wuxuu noqday ninkan milyaneer kadib wax la'aantaas ninkan markii uu ku soo laabtay wadankiisa Ireland wuxuu go'aansaday inuu aad u barto horumarinta gameska iyo applicationada sanado kooban kadibna wuxuu goostay tigidh diyaaradeed dalka Kuuriyada Koonfureed gaar ahaan magaalada Seoul wuxuuna kala xidhay halkaas shirkadda horumarinta gameska ee Blue Hole kadibna wuxuu sharxay fikradiisa iyo ciyaarta uu doonayay inuu horumariyo dhab ahaantiina xubnihii shirkaddan aad ay u qancisay fikradiisu sidaas ayuuna ku dhamaaday heshiiskii Greene iyo shirkadda Blue Hole dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ciyaarta PUBG ahayd ciyaartii koobaad ee uu soo saaray ninkani laakiin sidoo kale intaa ka hor wuxuu soo saaray games kale oo ay ka mid ahaayeen gamekii lagu magacaabayay Arma 2 More Daisy iyo sidoo kale ciyaarta iyadana loo yaqaano Delta Force Black Hawk Down laakiin sanadkii 2016 ayuu ahaa sanadkii ay ciyaarta PUBG u soo muuqatay adduunka xarfaha ay ka kooban tahay magaca ciyaartan wax laga soo gaabiyay PlayerUnknown's Battleground qaabka loo ciyaarayo ciyaartan waa qaab aad u fudud iyadoo ay kaga soo degayaan koox ciyaartoy goob gaar ah maapka ama khariirada marka laga degay diyaaradana dhammaan dadka ciyaaraya waxay ka siman yihiin inay yihiin bilaahu iyo sidoo kale inaanay haysan dhammaan ciyaartoydu waxyaabo la iskaga difaaco rasaasta marka qaarna waxaaba dhacday inaanay sidoo kale ciyaartoydu wadanba wax mariya marka uu soo degay ciyaartoygu dhulkana waxa ku wajaa mid walba oo kamid ah inuu urursado wixii huba iyo sidoo kale maryaa iyo wax kasta oo ugu baahan yahay dagaalka arrinka ka dhigaya ciyaarta mid aad u xamaasada una diidaya in ciyaartoydu dhuumaaleystaan oo ay sugaan inta ay dhammaanayso ciyaartu wuxuu yahay in meeshan lagu ciyaarayo ciyaartan ay kamid ah maabku ay bilaabayso marba marka kasii dambeysay inay kasoo yaraato hareeraha ilaa ugu dambeynta ay go'doomiso ciyaartoyda ciyaaraysa arrinkana waa waxa ay ku magacaabaan zone-ka dhammaan ciyaartoyda ciyaaraysana waxa ku waajibay inay ku soo ururaan zone-kaas ugu dambayntana kuwa aan ku jirin zone-kaas waa kuwa khasaaraya dabcan sidan aan u sheegay in loo ciyaarayo wax laga yaabaa inay wax ka khaldan yihiin sababtoo waa macluumaad aan ka soo akhriyay meel laakiin maaha waxaan practical u ciyaaray oo aan u sameeyay sida dadteedna waxaan rajaynayaa inay daanay qaban haddii ay wax ka khaldan yihiin sidan aan u sheegay haddii ay wax ka khaldan yihiin insha Allah waxay noo sixi doonaa asxaabta ciyaarta bishii September sanadkii 2017 waxay jabisay ciyaartan iskoor aad u sareeyo oo aanay hore u gaadhin ciyaar ka horeysay iskoorkaas oo hayna ciyaarayeen ciyaartan
1,342,857 qof oo hal mar online ahaa oo ciyaarayay gamekan, waxayna ka qaaday skoorkan gamekii Dota 2 oo ahaa muddo badan midka ugu horeeya dhanka ciyaaraha muuqaalada. Sidoo kalena waxay noqotay ciyaartan PUBG ciyaarta lagu ciyaarista iyo iibsiga badan yahay madasha ama platformka gamemka Steam. Waqti yar oo koobanna waxay ku awooday ciyaarta PUBG inay xaqiijiso guulaan hore loo xaqiijin iyadoo kale. bila dhowr gudahoodna waxa waday greenkii ahaa markii hore mid aan waxba haysan inuu ururiyahanti gaadhaysa 200 milyan oo dollar. Isugeynta dadka adduunka oo dhan ku nool ciyaartan waqtigan ay joognana waxay kor u dhaafayaan 400 milyan oo qof oo ku kala nool daafaha adduunka. bil walba dadka ciyaaray isugeyntoodana waxa lagu qiyaasaa 227 milyan oo qof iyo sidoo kale 20 milyan oo qof oo online ah ciyaartan maalin walba. haddii nagna wadamada ugu ciyaarista badan ciyaartan waxa lagu tilmaamay inay ugu horeyso dawladda China, waxaana la sheegay inay ka yihiin 33% dadka ciyaara maalin walba ciyaartan. kadibna waxay ku xigsiiyaan dawladda Mareykanka, waxayna ku tilmaamaan iyadana inay ka tahay 11% dadka sida joogtada u ciyaara maalin walba gamekan. kadibna waxay ku sii xigsiiyaan dawladda Hindiya oo lagu tilmaamay iyadana inay ka tahay 8% dadka ciyaara ciyaartan. arrimaha la yaab kale ee ku saabsan Barinder Green asaasaha ciyaartan waxa kamid ah arrimahaas oo laga yaabo inay dadka qaar la yaab ku noqoto. arrinkaasi wuxuu yahay Barinder Green isagoo ah mid ka sameeyay ciyaartan, haddana wuxuu sheegay inaanu gabi ahaanba ciyaarin ciyaartan. wuxuuna sheegay inaanu jeclayn inuu meel fadhiisto oo ciyaaro ciyaarta PUBG, iyadoo ay aad u badan yihiin dadka balwada ka dhigtay ee qabatimay ciyaarista gamekan. wuxuu sheegay Green inay ugu yimaadaan ciyaartiisa fariimahan jabaada maalin walba, ugana yimaadaan fariimahaasi dadka ciyaara ciyaartiisa. sababta ugu badan ee hanjabaadahana wuxuu ku sheegay sabab la yaab leh, wuxuuna ku sheegay sababtaasi inay tahay update-ka ama horumarinta lagu sameeyo ciyaarta mar walba. waa arrin iska caadi ah in barnaamij walba ama application walba la horumariyo oo wax laga saaro waxna lagu daro, laakiin ciyaartoyda ciyaarta gamekan muu cajabin arrinkaasi, waxayna ugu hanjabayaan Green si uu ugu soo celiyo ciyaartiisa sidii ahayd markii hore. sidoo kale macluumaadka kale ee la yaab kale ee ku saabsan ciyaartan waxa kamid ah haddii tusaale soo qaadano shirkadda Apple waxay ku bixisaa maal gaadhaya 1.8 bilyan oo dollar sanad walba xaysiima iyo advertisement-iga. macnaha waxay ka qaadaa shirkadda Apple sanad walba miisaaniyadeeda lacag dhan 1.8 bilyan oo dollar oo ay ku bixiso kaliya inay ku xaysiiso waxyaabaha ay soo saarto. laakiin misaayadu malaynaysaa in PUBG ay ku bixisay xaysiimo si ay ugu gaadho heerkan waqtiga dhaqsa badan leh 20 milyan oo dollar, 50 milyan oo dollar mise 100 milyan oo dollar. maya waxaas oo dhan way khaldan yihiin. xaqiiqaduna waxay tahay in shirkadda PUBG ay ku bixisay xaysiima $0. macnaha shirkadana kuma bixin wax lacag dhanka xaysiinta. talaabada kaliyana aan oran karno waxay siisay caanimadan PUBG waxay tahay talaabo aad u fudud oo ahayd kaliya tweet lagu soo qoray dhanka Twitter-ka. waxay sameyn jireen bilowgii dadkii horumarinayay gamekan PUBG inay ku soo qoraan dhanka Twitter-ka qoraaladaas oo ay ugu yeedhayaan dadka ciyaari jiray ciyaarta Counter-Strike inay baltijaabiyaan ciyaartan PUBG. ciyaartaas oo ay waqtigaas aad isugu ekaayeen ciyaarta PUBG. faafista degdega iyo qabatinka ay qabatimeen dhalinyarada ciyaartan dabcan waxay reebtay raad aan fiicnayn, waxaana kamid ah raadka saameynta baan ay ku yeelatay gaar ahaan carruurta yaryarka, iyadoo ay sababtay taasina in dawladaha qaar ay ka mamnuucaan gabi ahaanba wadankooda ciyaarista ciyaartan. tusaale ahaan sidii ka dhacday wadanka India bishii March sanadkii 2019 iyadoo go'aansatay dawladdu inay ka mamnuucdo oo ay ka xidho ciyaarta PUBG-da gobol kamid ah gobolada Hindiya oo ah gobolka Gujarat, iyadoo sababta ay u mamnuuceen ay ku sheegeen qabatinka ay qabatimeen dhalinyarada awgeed iyo sidoo kale arrimaha cunfiga iyo dagaalka leh ee ku jira gudaha ciyaartan oo saameyn ku yeelan kara maskaxda carruurta. wadanka Urdun sidoo kale bishii July sanadkii 2019 waxa laga mamnuucay isna ciyaarista ciyaarta PUBG iyadoo ay ku sababayeen sababta ay u mamnuuceen arrimaha aan wanaagsaneyn ama negative-ka ee laga dhaxlayo. arrimahaas oo ay kamid yihiin qabatimka iyo balwad ka dhigashada iyo sidoo kale kala tagga qoysaska siday sheegeen. sidoo kale waxa kamid ah dawladda iyaguna mamnuucay ciyaarta PUBG dawladda Ciraaq iyadoo sanadkii 2019 ka soo saartay dawladdu go'aan looga codeeyay golahooda baarlamaanka in laga mamnuuco wadanka Ciraaq gudihiisa gabi ahaanba ciyaartan PUBG. intaas ayuu ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. hayloobin hadduu ku qanciyo muuqaalku inaad like saarto, subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsantahay.